si haddaba dhegaystayaal aynu u fahamno xaaladda Soomaalidaha qarnigan dhamaanaya ee 20aad sida ugu bilaabmay waxaanu u baahanaynaa inaynu ka soo bilowno qaybtii ugu dambeysay ee qarnigii ka horreeyay oo hakii 19aad intii u dhaxaysay sanadkii 1860 ilaa 1897 waxa dhulka Soomaalida iyo gobolka uu ku yaalaba uu noqday mid loo galo tartankii xagga gumaysiga xilligaasi wadamada u tartamayay inay gumaystaan gobolkaasi waxa ahayn Ingiriiska, Faransiiska, Talyaaniga, Masar iyo Ethiopia. haddaba sanadku markuu ahaa 1859 ayaa Faransiiska qunsul u fadhiyay magaalada Cadan uu ogolaansho uga helay cafarta magaalada Obakh in Faransiisku uu yimaado 3 sano kadibna Faransiisku waxa uu canfarta uu ka iibsaday Obakh kadibna calankii Faransiiska ayaa halkaasi laga taagay hase ahaatee Faransiisku waxa inuu ka faa'iideysto uu bilaabay 11 sanadood kadib markii la furay Suez kanaalka waxaana halkaasi ay Ethiopia waqtiyadaasi ay ka wada sameeyeen sharikad xagga ganacsiga ah oo ka dhaxaysa labadooda dhinaca kale haddii aynu eegnana Talyaaniga ayaa isna bilaabay sidii uu meel uga heli lahaa gobolka Badda Cas waxaana wasiirka arrimaha dibadda ee Talyaaniga waqtigaasi oo lahaa uu awood siiyay baadari hore u fadhiyi jiray dalka Ethiopia oo la oran jiray Giuseppe Sapeto in Talyaaniga meel uga helo halkaasi 1869 ayaa Mr. Giuseppe uu helay magaalada Layada Casab sanadkii ka dambeeyayna shirkad Talyaaniga oo ku hawlanayd wixii maraya Suez kanaalka oo ku socda India ayaa Talyaaniga Casab uga iibisay cafarta sida taariikhdu ay qorayso xilligaasi Masar ayaa iyaduna dareentay tartanka gobolka loogu jiro dabadeedna waxa ay soo nooleeyeen Turkiga oo hore isagu u sheegan jiray xeebaha Badda Cas sanadku markuu ahaa 1866 ayaa Turkigu dabadeed Sukayn iyo Musawac oo Eritrea ku wareejiyay dawladii Khadiif Ismaaciil ee Masar iyadu markaasi ka dhisnayd oo iyaduna dabadeed sheegatay xeebaha Soomaalida dawladdaasi Khadiif Ismaaciil barasabkii u fadhiyay Suudaan ayaa dabadeed sanadku markuu 1887 booqasho ku yimid isagoo ujeedadaas u socda magaalooyinka Tajura, Zaylac iyo Berbera mar dambana waxa la soo diray nin la oran jiray Maxamed Jamaal Bey oo calankii Masaarida isagu ka taagay Bulxaar iyo Berbera haddaba tallaabadaasi markii Masaaridu ay qaaday taasi waxa ay baraarujisay Ingiriiska oo fadhiya Cadan oo ciidamada ka fadhiya halkaas hilibku uga iman jiray xeebta Soomaalida Ingiriisku waxa kale oo ay doonayeen in wadan kale oo awood leh aanu qabsan xeebaha Soomaalida gaar ahaan waxa isha ay ku hayeen oo ay ilaalinayeen Faransiiska oo tartan ka dhaxeeyay hase yeeshee Ingiriiska iyo Masaarida ayaa afgarasho ay dhexmartay maamulkii Masaariduna si dhaqso ah ayuu ugu fiday xeebihii Soomaalida 1877 ayaa Ingiriiska iyo dawladii Khadiif Ismaaciil ee ka talinaysay wadankaasi Masaarida ay heshiis kala saxeedeen oo ay isla ogolaadeen in talada Masaarida ay gaadho ilaa Ras Xaafuun dawladii Khadiif Ismaaciil waxa yeeshay ay ka baxday gobolkaasi markii mahdigii Suudaan uu ku kacay oo iyadu markaasi awoodi kar weyday in ay isbalaadhiso intii Masaaridu ay ka talinayeen xeebaha Soomaalidana waxa ay hagaajiyeen waxa kamid ahaa dekedaha magaalooyinka Berbera iyo Zaylac noobiyada ay dhiseen iyo biyaha macaan ee Dubaar ee magaalada Berbera waxa kale oo ay dhiseen masaajido markii haddaba Masaaridu ay ka baxeen xeebaha Soomaalida ayaa Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu heshiisiyo oo la galo qabaa'ilka waqooyiga Soomaalida si uu u ilaaliyo hilibkii magaalada Berbera uga iman jiray ciidamadiisii ka fadhiyay magaalada Cadan oo muhiim u ahayd ganacsiga ula lahaa wadanka India haddii aynu dub ugu noqon haddaba Talyaanigu markii uu sugay in Eritrea ay mustacmarad u noqoto waxa uu bilaabay inuu ku durko dhinaca Abyssinia ama Ethiopia waxaana uu la galay heshiiskii la oran jiray Ujialia oo Talyaanigu u arkayay in Abyssinia mustacmarad uu uga dhigayo Talyaaniga inkasta oo boqorkii Ethiopia waqtigaasi ka talinayo loo oran jiray Melik uu isagu ku dooday in heshiiskaasi tarjumadiisa Afxmaariga marka la eego aanay sida iyadu ahayn oo markaasi ay u fasaxaysay inuu si toos ah ula macaamili karo wadamada dibadda heshiiskaasi awgi ayaa Talyaanigu u suura geliyay inuu bilow u noqdo inuu ka qayb qaato qaybsigii Soomaalida la qaybsanayay sanadkii heshiiskaasi la galaba waa 1889 bishii February qulsul Talyaaniga ka fadhiyay Zanzibar oo la oran jiray Vincenzo Leonardi iyo suldaankii Hobyo Cali Yusuf ayaa heshiis galay Talyaanigu uu ku ilaalinayo sanadka dhamaadkiisina shirkadda Talyaanigu lahaa oo la oran jiray Imperial Bridge East Africa ayaa ka sii kireeyay Talyaaniga xeebaha Banaadir oo uu markii hore ka kireystay suldaankii Zanzibar sanadku markuu 1892 suldaanku waxa uu ku wareejiyay Talyaaniga magaalooyinka Baraaw Marka Muqdisho
warshiikh muddo 25 sannadood isaga oo kaga kireeyey 160,000 sanadkiiba waa lacagta liirahe. haddii haddaba aynu dib ugu laabano abasiiniya amaba etoobiya markii uu arkay damcii reer yurub ayaa boqorkii etoobiya ka talinayay wakhtigaasi amanlik waxa waraaqu u qoray dalalka awoodda lahay wakhtigaasi jiray sanadkii 1891 warqadaasi waxa uu ku yidhi etoobiya muddo 14 qarni ah ayaa waxay ahayd jasiirad ku dhex taala dad cawaana haddii wadamo meel fog ka yimi ay u yimaadeen inay afrika iyagu qaybsadaan kuma tala jiro in aan noqdo ruux daawanaya oo aan danka lahayn. dagaalkii cadwa ee dhex maray talyaaniga iyo etoobiya sanadkii 1896 ayaa haddaba tirtiray sheegashadii talyaanigu uu sheeganayay etoobiya inay mustacmaradu tahay. dagaalkaasi oo talyaaniga laga adkaaday kadib markii talyaanigu lagu jebiyey dagaalkaasi cadwa waxa uu u howlgalay sidii u sii haysan lahaa dhulkii soomaalida ee uu qabsaday. nin la odhan jiray major nerozanium ayaa wadahadalla dhinaca talyaaniga u galay waxaana etoobiya talyaaniga ay ku khasabtay inuu yareeyo dhulkii uu sheeganayay ee ogaadenaya. dhulkaasi oo heshiis hore ingiriiska ay wada galeen sanadkii 1894 ingiriisku uga ogolaaday. sanadku markuu 1879 ayay Itoobiya iyo Ingiriisku waxay wada galeen heshiis tusmaynaya sida ay u kala leeyihiin dhulka Soomaalida. hase ahaatee Soomaalidu waxay u ogaatay waxa dhacay 30 sannadood kadib markii la isku dayay in soodinta u dhaxaysa la calaamadiyo. sheekadaasi marka aynu soo gaadhno ayaynu haddaba ku soo noqon doonaa dhegaystayaal hase yeeshee haddii aynu ku soo dhowaano qarnigan dhammaaday waxa Soomaalida uu u bilaabmay iyada oo la gumaysto. gumaysigaasi 20 sannadood ee qarniga ugu horreeyay halgankii ugu weynaa ee koor yimid waxa uu ahaa kii daraawiishta ee uu hogaaminayay sayid maxamed cabdulla xasan. sida haddaba qiyaasu tahay sayidku waxa uu dhashay bishii abril 7 sanadkii 1864 waxa uu ku dhashay ceel laga cabo oo ku yaala meel u dhaxaysa wedwed iyo buuhoodle. 7 jir markuu ahaa ayuu qur-aanka barashadiisa bilaabay. 19 jir markii uu gaarayna waxa uu noqday sheekh oo loogu yeeray. intii barashada cilmiga uu ku jiray sayid maxamed cabdulla xasan meelihii uu soo maray ee uu tagay waxa ka mid ahaa magaalada Harar ee dalka Itoobiya, Muqdisho, Suudaan iyo Maka. intii uu joogay Maka waxa macallin oo noqday amaba uu ku xidhmay sayid maxamed saalex oo dariiqada saalixeeda isagu ku abtirsato. sayid maxamed cabdulla xasan markii uu berbera ku soo laabtay dhulka Soomaaliland waxa ugu horeysay dariiqada qaadireeda oo Sheekh Cabdulqaadir Jiilaani uu ku sameeyay magaalada Baghdad ee waddanka Ciraaq. dhulka Soomaalidana waxa hormood ka ahaa Sheekh Cabdiraxmaan Zaylaci iyo Sheekh Huways Maxamed. sayid maxamed markii uu soo laabtay waxa uu isagu u watay dariiqada saalixiya. waxa uu bilaabay ololo uu Ingiriiska kaga saaray dalka isagoo oo huwan dariiqadiisa saalixiyada. sanadku markuu ahaa 1899 bishii abril waxa rasmi ahaan loo sheegay inuu urursaday ciidamo gaaraya ilaa 3,000 oo nin. 1 September sanadku markuu ahaa 1899 waraaq uu soo diray qunsulkii Ingiriiska xeebaha Soomaalida ugu qaabilsana waxa sayidku Ingiriiska uu ku eedeeyay inay cadaadinayaan islaamka waxana uu cambaariyay kuwa gacanta siinayay. warqadaasi waxa uu ku yidhi sayidku imika idinku kala doorta haddii aad dagaal doonaysaanna waa ogol haddii aad nabad doonaysaanna ganax bixiya. maalintaasi ayaa nin fallaaga loo qoray. 20 sannadood oo dagaal kula jiray Ingiriiska, Talyaaniga iyo Itoobiya ayaa markay 1900 markay taariikhdu ahayd ilaa 1904 iyadoo taageero uu ka helay Itoobiya iyo Talyaaniga ayaa weerar xoogaa Ingiriisku sayidka ku qaaday. 17 bishii abril sanadkii 1903 9 sarkaal iyo 189 askari oo kale ayaa Ingiriiska laga dilay. sayidka ciidamadiisana iyagana waa la weeqay. taasuna waxa ay keentay in heshiis nabadeed uu la galo Ingiriiska iyo Talyaaniga oo uu ku codsado in loo yeelo 4 arrimood. waa ta koowaad in uu meel ku yeesho dhulkii Talyaanigu xukumayay, ta labaad inuu helo xornimo xagga diinta, ta saddexaad inuu xornimo u helo iyadana xagga ganacsiga, iyo ta afraad oo ahayd inuu xukumo dadkii isaga markaasi la socday. 4 arrimood oo sayidku codsadayba afartaba waxa laga ogolaaday heshiiskii ka dhacay meesha la yiraahdo Ilig bishii March 5 sanadkii 1905. hase ahaatee sayidka ololihiisii halkaasi kuma joogsan. waxa uu ugu kululaa dagaalkii xagga afka
ee ay xambarsanaayeen gabayadiisu sida loo arkayba waxaa dabadeed dhacday in ingiriisku uu dib ugu soo gurto xeebahaasi oo uu hubeeyo qabaa'ilkii la jiray hase ahaatee taasi waxa ay dhalisay in qabaa'ilkii la hubeeyey ay bilaabeen inay ku kala aargoostaan utumo hore iyaga u dhex yaalay xilligaasi waxaa dhacay wakhtigii loo bixiyey xaaraama cune oo macaluul aad iyo aad u ba'ani ay dhacday rasmi ahaan ingiriisku sanadkii 1912 waxa uu ku qiyaasay in maxmiyadiisii 3 meelood meel ahaan dadkii ku noolaa ay dhinteen waxa kaleeto oo dhacday inuu sayidkii u soo xoogaystay taasu waxay keentay in ingiriisku uu bedelo istiraatiijiyadiisii waxa la abaabulay ciidamo uu hogaaminayay ninkii la oran jiray Richard Coffin oo isagu dagaal la galay sayidka bishii August sanadkii 1913 dagaalka ba'an ee ka dhacay meesha la yiraahdo Dulmadoobe oo bariga magaalada Burco ka xiga ayaa lagu dilay ninkaasi la oran jiray Richard Coffin sayid maxamed cabdalla xasan gabay dheer ayuu ka tiriyay geerida Coffin وهجاك برنامجكني marka halkaas ayaanu ku joojinaynaa waxaanu halka ka bilaabi doonaa marka barnaamijka qaybtiisa labaad